shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel ayaa qaar ka mid ah macaamiishada ugu tala gashay inay guddoonsiiso abaalmarino ay ugu tala gashay abaalmarinahaasi haddaba waxaa ka mid ah guri maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa lagu wareejiyay furaha gurigaasi kaasi oo uu maayirkuna guddoonsiin doono cidda ku guuleysata gurigaasi marka la gaadho ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay mas'uul ka tirsan shirkadda Somtel waxaanu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay gurigani iyo waliba waxyaabaha ay ugu tala galeen dhammaan ummadana daawanaysa reer Somaliland iyo sidoo kale macaamiisha Somtel maanta halkan waxaynu joognaa ballan aan hore u qaadnay inaan oofino oo ahayd gurigii lagu guuleysanayay ee ka mid ahaa ama boqorka uu ahaa 10,000 hayadood ee aan ugu tala galay macaamiisha sanadka 2021ka gurigii maanta maxay ahayd inaanu wareejino oo aan ku wareejino maayirka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge sida wada ogsoontihiin shirkadda Somtel maayir waxay dadka maxay ahayd wadanka ku celisaa waxyaabo badan bay ku celisaa dadka reer Somaliland ama macaamiishu meel kasta joogaanba laakiin tan maanta u joognaa way ka duwan tahay ku celinta ama waxyaabahan maanta ku celinaa waa mid ka duwan taas waxay gaar u tahay macaamiisha shirkadda Somtel sanadkii hore waxaanu qaybinay 5,000 hadiyadood oo ay ku jiraan 10 gaari oo Hyundai ah oo ay ku jiraan hadiyado kale oo qaali iyo ciidda ka badan sanadkan maanta waxaanu go'aaminay inaanu sanadkan 2022kana inaanu macaamiishayada ku celino 10,000 hadiyadood 10,000 hadiyadood aan ku celinayna macaamiisha waxa ugu qaalisan maanta hantidan ma guurtada ugu qaalisan gurigan dhex taaganahay diyaarsan oo goglan oo aan ku wareejin doono marka macmiilka shirkadda Somtel ee hela aan ku wareejin doono ha joogo meel kasta wadanka Somaliland ha joogo maadaama tayadu marka duqi magaalada gurigana uu ku yaala maxay ahayd caasimadda Hargeysa ku yaalo waxaanu maanta kugu wareejinaynaa furihii gurigaasaan kugu wareejinaynaa si hadhow toole macmiilka ku guuleysta nasiibkiisa u hela abaalmarinta nasiib u hela adigu aad ugu wareejiso annagu gurigii waana kanaga kan dhex buu naga yahay duqa caasimadda haya ilaahay waxaan u baryaynaa inuu u barakeeyo macmiilka ku guuleysan doona macaamiishayada kala joogta 6 gobol ee wadanka Somaliland kala joogta kii helaaba waa anaga waa macmiil buu noo yahay waxa muhiim ah in tartanka iyo abaalmarintaas ay noqoto mid daahfuran oo maxay ahayd oo la wada og yahay marka daahfurnaanta anagoo dhiirigelinayna mudane maayir ayaanu ku wareejinay wax maxay ahayd ku xidhan qof shuruuda ku xidhan macaamiisha ma jirto aan ahayn inay yihiin macaamiisha Somtel oo ay isticmaalaan adeegyada maxay ahayd Somtel ee ku hadalka iyo internetka iyo dahab oo qura insha Allah marka waxaanu soo gabagabeynay oo maanta khamiis aanu gabagabeynay kaltankii afraad waxaanu qabanaa kaltano badan marka kaltankii afraad oo hadda waxaanu bixinay 4,000 hayadood baan bixinay 6,000 hayadood baa hadhay gurigu ka mid yahay baa hadhay marka 6,000 macaamiishu way u siman tahay meel kasta ay joogaan insha Allah gabadha wiilka odayga ama maxay hooyada ku guuleysata maayirka ayaa u haya furihii guriga u haya بريتول جمعنا واحد بلامي دونا مرة كلتا كيشنات بلامي دونا ترتنك أبال مريت 10,000 هيدود أنا قلت لك مع عميش يدا ضمان وأنو مهند غينا مع عميش إن شاء الله هاي Cabdikariin Axmed Mooge maayirka caasimadda Hargeysa oo geestiisa asaguna halkaasi ka hadlay ayaa yiri waxaan aan sugi karin oo ku faraxsanahay in qof muwaadina reer Somaliland uu heli doono guri uu ku noolaado oo qurux badan oo isagu u leeyahay dadka wasaka ahaan waa mas'uuliyadkeega qof kastoo muwaadini dhul uu degay inuu helo kuwa aan dhisan karin ay helaan waliba dhulkii oo dhisan waa riyo weyn laakiin way fogtahay xilliga ay suura galayso marka in qof muwaadina nasiibkiisa uu kaga heli doono companyga Somtel gurigan quruxda badan ee gudihiisa arkay oo waliba goglan basugi karaya maalinta qofka muwaadinka inaan farxadda la wadaago oo furaha ammaanada ah aan u hayo aan gacanta ka geliyo dabeetana aan ogaaday in qof reer Hargeysa ama reer Somaliland uu maalinta helay guri isagu iska leeyahay dhul isagu leeyahay uu degan yahay oo ku noolaanayo maalintaas maalin qiimo leh ay noqon doontaa marka furaha in Somtel lagu soo wareejiso oo aan sugo qofka ku guuleysta oo dabeetana ku wareejiyo aniga maalinta farxadda ugu weyn waa maalintan ku wareejiyo furaha qofka muwaadinka hooyada inanta odayga maalintaas ma sugi karo marka furi waan hayaa
gurigana wuxuu ka mid yahay guryahan hadda hayno ee muwaadinka hela aanu ku wareejin doono nasiib wanaagsan baan u rajaynayaa dhammaan macmiishiina waxaan ilaahay ka baryayaa qof mudan oo u baahan oo baahi u hayso guriga guri ahaan ugu baahan meel u dega horaba u lahaa sabool ahaa aan dhisan karin aan dhul iibsan karin aan toon ognahay Hargeysa cidina dhul ma goynayso waxaan ducada u gaar yeelayaa qofka baahida gaarka ah oo qaba ilaahay waxaan ka baryayaa qoys aan lahayn meel ay degaan iyo guri ay ku noolaadaan inay ku guuleystaan oo macmiishiina ka mid ah waanan maalintaa insha allah aan wareejinaynana waan joogi doonaa halkan dabeetana waxaan qayb ka noqon doonaa farxadda qofka wajigiisa saaran inuu yeeshay guri uu isagu iska leeyahay waxaan rajaynayaa gurigaas oo goglan oo qurux badan oo ilaa taagiga maca biyo ugu jiraan qofka oo haddaad doontaan macawiciyadda iska sii taallo inaan qoyska keeno oo markaa caruurtii iyo hooyadii iyo odaygiiba markaa ay soo galaan ama uu noqdo inan dhalinyaro ah oo guru diyaar ahaa oo markaa ay kuba aqal galaan oo maaragtay arooskooda halkan uu ka dhaco waa maxamed xuseen ibraahim Sam News TV magaalada Hargeysa